السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يالسود هذا فيديو قال لايك صار مهم وعاو فيديو إنا لايك صارتد صاحب هذا كله نقول سبسكرايب كده نقول يرجلين هذا وما سنتين مانشستر سيتي كم باك أي برتاي هدي اللي بقول لو مرة حتى سد حدي بس قول مهم أي كوجارت اتحاد استوديوم بروسي دورتموند يكون بعض ولا يابا قالت كعيارته وسمي باب جوارديولا قالوا كصحي إسلا مركي جول كلا قدر ليه باريس سان جيرمان وقول مهم جارتي nimankii AC Milan oo ayagana guul gaaray Madrid cadcadka Los Blancos ayagana absolutely fantastic nimankii Juventus ah kuwaas oo u dhamaatay Europa League emails ay aadi doona xagaagan gurigooda inta loogu imaada Benfica ku garaacday intaas oo qaada dhigi doona waa ku bariya fiidiyogan adoo like saan ha bixin caawa aad u mahadsantahay nala joog daqiiqadaha yarka oo ciyaarahan falqaynay nala joog nagu dhiirigeli aad u mahadsantahay waxa ku hormarayna Manchester City nimankii ah Borussia Dortmund gool inta ugu hormareen half kan biyada dambe ee Manchester City comeback sameysay laba gool iyo gool ku soo dhamaaday man of the match ciyaarta Erling Haaland kulan walba ay dheeshay Man City in Haaland oo man of the match qaato wax absolutely fantastic ee waa tayadiis inay aad u sareysa ku sheegaya waxaan ku iri gool naga dhaliyay Bellingham waa da'yar cajiib 19 jir gool qurux badan oo naga dhaliyay isla markii Pep Guardiola markii muxuu sameeyay qaladkiisa wax ka saxay waxay ka diiftay waxa banad ahaa waa labada garbood ee garab weerarka Mahrez iyo ninkii ahaa Grealish inuu qof koorno ku dhufto inuu banooni xitaa saam u baasi karo ilaahu kaas ana dhaam wallahi reer City oo ana dhaama kaas xitaa ma iga diidi kartiin aan ku dhahay dhagax ina dhigatiina idin dhaama Grealish meesha dhiga lahaydeen alcamuun ciyaarta Pep wax buu ka bedelay wuxuu ku soo tuur Alvarez wuxuu keenay Foden oo kubada dheer u geynay ninkii ahaa Haaland قد كدحي غندغان oo ku cun wuxuu ku soo bedelay Bernardo Silva ajaib shaqo ajaib absolutely fantastic Manchester City ayadoo gool lagu leeyahay ciyaarta maamulkeeda way haysatay haddana waxa waali ah ama ajaib ah Kevin De Bruyne caawinta uu sameeyay ninkii ah Stones markaas madaxa ka dareemay inaan badinayna aniga Stones goolka koowaad dhaliyay 4 daqiiqo u dhaxaysay ninkii ah Erling Haaland wuxuu taagan yahay Borussia Dortmund waa soo taabanaa shabaqiina qaarada Yurub koox ka dhisan oo shabaqeeda iga ceelish karta ma jirto hal bil gudaheeda Man City waxa loogu dhaliyay 13 gool miya mas 14 gool loo dhaliyay Manchester City ma jiri xilli ciyaareedkan oo dhan xidig dhaliyo 10 gool xitaa ma soo heleys Erling Haaland 13 gool la maraya mar walba waa leen ab favorite ugu hor ciyaarta asaa iska leh Haaland absolutely fantastic caawa aabisa garoonka fiirsanay UEFA Champions League 22 kulan oo saftay 6 gool ayuu 26 gool u dhaliyay Manchester City 9kii ku haboona hadda ay soo heshay waa u jeedeen ciyaarta Pep wax buu ka bedelay Man City sida Real Madrid ee u soo garaacday UEFA Champions League xagaagi hore waxaan moodaa comeback inaan baranay oo 3 diin ugu leeyahay xataa 4 baan ka dhigi karnaa come on waxaasa imaray come on saaxiibayaal marka hambaliyaada la yareen Manchester City wax lidinka qaban kara malahan 20 kulan ee ugu dambeysay Etihad Stadium Manchester City ay ku dheeshana gool ayay ku gaaraysaa garoonkeeda wax gool dara kuma soo gaarin xataa barbaro kuma galin 20 kulan madaxan ka dareemay rekoorka waa ilaashanay halkaas ugu gudba kuma si dheeranay saaxiibo badan ay ugu xiran aan ciyaarihi kale u sii falqeyn doona halkaas ugu gudba waxa isoo qabateen kooxda kale ta idan nimankii ahaa Chelsea hadii macallinkii laga bedelay xitaa caawa back for dheelayeen 1-1 ay ciyaartoodu ku soo bilaabatay macalinka cusub waxa goolkiis u horeeyay waxa u dhalay Raheem Sterling annaga reer Chelsea waa nasanay Sterling iyo Grealish waa ka Sterling iyo Jesus waa ka nasanay goolihii banooniyaasha foorada aad jiray waxaas waa ka nasanay nin kab afka ka gilaya kaasana aan halano waa naga soo daahday mar hore xanoogu imaaweysay alcamuun Chelsea kuma sii dheeraanayay 1-1 ayay galeen tujal hadii la buriyo xitaa xaalka sidiisi waaye Chelsea back four ay dheeshay laakiin kuma sii dheeraanayna Chelsea kuma degdegayna maadaama isbedel macalin ay gashay macalinka soo u dheelay qaybkiis ee fiican tahay Chelsea dhaawacay ku jiro in goolahay waa ka maqan yahay marka keeba isbalaaga caawa ku jiro laakiin si dhimala waxa idin leeyahay barbar ayaad gasheen hadii ku Stamford Bridge joogo kulanka hor in ka soo badiyay hal dhibic inaad ka haysataan 2 kun wax ceeb waay inaan soo kabataan idin rajeena halkaas ugu gudbay xoog weynta London waxa ay soo qabataan nimankii Paris Saint-Germain ahaa 3 gool iyo gool ku soo dhamaatay ciyaartooda Lionel Messi rekoorkiisa ayuu sii wataa rekoorkiisa waaliduhu sii wataa waxa lagu leeyahay 30 iyo waxa lagu leeyahay 9 kooxood oo kala duwan UEFA Champions League oo goolalka kala dhaliyay mideeda kale waxa lagu leeyahay Ronaldo adaa Europa League ka dheelay oo dul qaado still wuu ka horeeyaa hadeertana lagu leeyahay Ronaldo Messi
adi maasan iyo golo Messi Neymar Mbappe ayaa goolasho kala dhaliyay 3 gool iyo gool ay kusoo dhamaatay wax laga sii sheegay male goolka koowaad qurux u ahaa goolka kale absolutely u ahaa waxaan ku dhahay aniga harta ciyaarta Man City 70% aan daawaday ee ciyaarta Chelsea labadaas ciyaar oo isku daabana marka nimankii ahaa Paris ayagana 3 gool ebre kusoo dhamaatay saaxiibayaal waxa ay soo qabataan nimanka xilli ciyaareedka ala yaabana Juventus waxaan ku dhahay gurigooda loogu imaaday ka dad daansaday hal gool ee Tuurige ah dhiibeen laba loogu bedelano nag waa loo sarfay maxaa iga bedeli kartiin wallahi ciyaartan halkaas ay kusoo dhamaatay marka kulanka horena Paris garaacday kulankan waa la garaacay Chelsea iyo nimankii ahaa iyo Juventus waxba isma dhaamaan ku dhaxal ciyaareedkan wax ay isdhaamaan oo Ilaahay abuurtay ma jirto halkaas uu gudbeenaa nimankii AC Milan ahaa ay ka horaantii dheeleen galabnimada wixii dheeleen hal saac iyo bar waxaan ku iri 3 gool iyo gool inaan ku bees wax absolutely fantastic way ayaga naftirkooda kulanka hore barbar soo galeen waxaaba dhaamaan Chelsea 4 dhibcood oo groupka ka haystaan marka kuleetiga asaas la isku wada dhagayaan saaxiibayaal UEFA Champions League wax ay ka dhiceen mal habeen walba waxa arkaysaa mucjiso goonideeda halkaas uu gudub waxa iloobay caawda Los Blancos Real Madrid ayadana gool muhiim ay gaartay 3 gool waxaan ku iri 3 gool ee dhalis Real Madrid waxaan ku iri waa taas kooxdan 80 daqiiqo Real Madrid oo ever hadaa tagtid xitaa hadaa ugu maad ayadoo gool laha ugu maanaysa wax laga qaban karo ma lahan da'yarkeeda gool dhalna waayeelkeeda gool dhalna ayagoo dhan gool dhalnayaan absolutely fantastic caawininkii ahaa Vinicius Junior ma arki laakiin ciyaartooyda kale aad u wanaagsaneed wax kale oo indhaha ma aqaanahay inta ka badan ma hadli karo 6 saac binimo waa la dhaafay marka saaxiibayaal fiidooga like saar caaw ma waxa furan reer Manchester City iyo dhamaantii reer Chelsea reer Arsenal ee meesha ma joogin Europe League ka dheeshaa aad u mahadsantii saaxiibayaal sa ii dhiirigelisaan like ta fiidooga dhig oo keena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh